waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة إيه برنامج كأني كبر هوذا أتكلس عن جتن تفيق قرن كسومالي لان إيه دعاد راديو هرجيسة وأنا جوا معلمة سمسم إسماعيل عبدي يدينا رجع مهددة بايلا تشجع 10 كانوا مانتا دجانا سنة هرولس عنا فصلات دجانا وافون 1 ترم كانوا دجانا نوا ترم كاني كواد chapter كانوا دجانا نوا chapter كاني لبعض introduction to green planties وحن مانتا دجانا نوا حلايا قانو introduction أما حن دجانا waa sexual reproduction in a plant waa qaybta taranka ee dhirta waayahay xiisadii ku horeysay waxaanu soo qaadanay waxa loo yaqaan photosynthesis-ka waxaanu ku soo sheegnay in dhaco markuu dhirtu hesho waxa loo yaqaan light energy chloroplast carbon dioxide iyo water inta markay hesho waxaan soo sheegnay inuu dhaco waxa loo yaqaan photosynthesis-ku productida soo baxa markuu dhaco photosynthesis-ku inuu yahay oxygen iyo sugars sidoo kale waxaan soo sheegnay carbon dioxide photosynthesis-ku inuu yahay chemical reaction complicated ama series of complicated reaction waa mid taxana ah oo soo noqnoqonaya waana reaction adag equation-kiisa hore inuu soo aragnay waxaanu soo sheegnay oo kale waxa loo yaqaan trisomies waxaanu nimanka photosynthesis-ku si guulo ama si dhameystiran u dhamaado dhirtu waa inay heshaa light energy and water as possible dhirtu waa inay heshaa biyo iyo light sida ugu suurtagalsan deetana markay dhirtii hesho cuntadii oo lagu sameeyo photosynthesis-kii biyihii iyo light energy-gii shoots must grow upward the light dhirtu waa inay kortaa way u kortaa dhinaca sare ee light-ka sidoo kalena maxay roots-ka iyo xididada geedku must grow down into the soil to get water waana iyaguna u koraan xagga hoose oo ah dhulka hoostiisa waxaanu soo sheegnay dhirtu inay ka jawaabto carina fara badan kuwaasoo ku sameynaya koritaankaas u koreeyo towards and away from the stimulus carintaas ayay ku sameeyaan koritaan waxaanu koritaankan uu geedku u koray upwards the light oo xagga sare inuu geedku u dheeraado iyo inay xididadu u dheeraadaan down into the soil xagga hoose ayaa waxa loo yaqaan trisomies waxaanu soo sheegnay wax loo yaqaan positive response iyo negative response waxaanu soo sheegnay geedku haddii uu u koro waxaanu if plant grows towards the light haddii ay dhirtu u korto xagga light-ka ee sare is called positive light waxa la odhanayaa waa positive response aan idhaahdo waa positive response haddii uu geedku sameeyo grows away from the light uu ka koro xagga ilayska uu hoos u korana waxa la odhanayaa waa negative response haddaba image-ka inoo muuqda waa negative response geedkii loogu talagalay inuu xagga sare u koro sida inoo muuqata umuu korin deetana halkaa waxaan odhanaynaa waa negative response kalabaad inoo muuqdo image kalabaad inoo muuqdaana waa positive response sababta positive response ku yahayna waxa weeye geedku waxa uu koray xagga sare sidoo kale xididadiina waxa uu koreen xagga hoose waa positive response qaybteena maanta ama cashirkeena maantu waxay nooga bilaabmayaa reproduction in plants waa qaybta ama koritaanka ee qaybta taranka ee geedka aan idhaahde sexual reproduction in plant waa habka sinji ee taranka ee ay leedahay dhirtu haddaba faraawilka waxa loo yaqaanaa waa qaybta ugu muhiimsan ama waa qaybta uu ka dhaco reproductive-ka ama waa reproductive organ of the plant aynu xaggan soo yara eegno faraawilku wuxuu ka kooban yahay
qaybahan inoo muuqda imika sawirkan ama imagekan inoo muuqda waa faraawil faraawilkaas wuxuu ka kooban yahay waa female iyo male buu iskugu jira sidaa daraadeed wuxuu inaga filayahay inaynu labadaba qaybahooda kala barano waxaynu ka horeynaynaa dhinaca midig halka ugu sarreysa ama tuumbada ugu sarreysa afkeeda waxaa loo yaqaanaa stigma usha dheere kor u haysa waxaa loo yaqaanaa style dhuunta ama qaybtaa ballaadhan ee gudaha hore hoose ku jirtaa waa oferi deetana qaybtaas kaarbalka haddii aynu aragno waa female faraawil waa faraawil dhadig dhinacan kale markaynu eegno waxaynu arkaynaa antar mar haddaynu antar aragno waxa weeye meeshu waa labbaa yaalla filimenti waa ushaa dheer ee uu ku yaalla antarku labada waxa laysku dhahdaa stamankaasina waa male faraawil kan waxaynu odhanaynaa dhinacan waa ka lab intaa dhinaca aynu ku aragnayna waa dhadig qaybta caleenta ama faraawilka qaybtiisa qurux badan waxaa loo yaqaanaa betalis usha dheer ee kor u haysa waxaa loo yaqaanaa receptoris ugxanta halka ay ku dhacdo waxaa loo yaqaanaa ama positionka ugxanta waa ovule caleenta qaybteeda ama faraawilka qaybtaa kor u haysa waxaa loo yaqaanaa siibal waxaynu idhi faraawilkan wuxuu ka kooban yahay waa faraawil iskugu jira lab iyo dhidig waa sidaa hadhow cashirkeenu inoogu fududaado qaybta kood waxaynu ka horeynay waa stigma iyo style iyo oferi waxaynu ka horeynay dhinaca midig waxaynu idhi kuwaa waxa loo yaqaana waa kaarbalkaasina waa female faraawil waa qaybta dhidig ee ubaxa halkan qaybtan hoose waxaa loo yaqaanaa waa sibalis ugxanta halkay ku jirtaana waa ovulkii faraawilka qaybtaa hoose kor haysa waxaa loo yaqaanaa receptacle qaybtan waa labkii ama waa qaybtii dhadig ee faraawilka waxaa ku yaala antarkii oo ah halkii lagu siday boolan gareenka usha dheer ee antarka kor haysa waxaa loo yaqaanaa filimenti qaybtana waxaynu odhanaynaa waa male faraawil aynu eegna haddaba waxaa loo yaqaano faraawil ah reproductive structure of the plant faraawilisku waa qaybta taranka ee dhirta they contain the reproductive waxay ka kooban yihiin organiska reproductiveka which produce male and female sagasalis kuwaasoo soo daaya muxuu ahayey maileka iyo femaleka sagasaliskooda ama gamatiskooda male gamate are contained male gamatisku waxay ka kooban yihiin waxaa loo yaqaano bowlan greenku wuxuu ku dhex jiraa meesha loo yaqaano antarka female gamatekuna waxay ka kooban yihiin waxaa loo yaqaano ovuliska oo waa ugxanta waxaynu waxaa loo yaqaano faraawilku waa reproductive structure of the plant waa qaybta taranka ee dhirta they contain reproductive waxay ka kooban yihiin reproductive organiskii dhirta which produce male and female sagasalis or gametes kuwaasoo soo daaya labka iyo dhidiga gamatiskoodii male gamatisku waxay ka kooban yihiin waxaa loo yaqaano bowlan graniska female gamatiskuna waxay ka kooban yihiin waxaa loo yaqaano ovuliska waxaynu idhi waxaa loo yaqaano faraawilku waa qaybta taranka ee dhirta kaasi oo ka kooban gamatiska labka iyo dhadig kuwaasoo aynu odhanayno male gamatisku waxay ka kooban yihiin bowlan green female gamatiskuna waxay ka kooban yihiin ovulis waayahay sidaynu horeba usoo aragnay kan waxaa loo yaqaano faraawilkii oo aynu kusoo sheegnay inuu yahay reproductive organ of the plant ama qaybta taranka ee dhirta sida qaybta midig idinka muuqata waxay noo yaalla waxaa loo yaqaano stigma style iyo oferi intaa waxaa loo yaqaana waa kaarbal waana female faraawil waa qaybta dhidig ee faraawilka oo ka kooban oferigii dhinacan bidix markaan usoo noqdo waxaa ku yaala antarku isaguna wuxuu ka kooban yahay waxaa loo yaqaano bowlan granis faraawilka qaybtiisa kalarka quruxda badan le waxaa loo yaqaanaa betalis caleenta uu ku taagan yahay ama laanta yar uu ku taagay waxaa loo yaqaanaa receptacle ugxansidaha waxaa loo yaqaanaa ovule caleentaa ka hooseysana waxaa loo yaqaanaa sibalis waa inta aynu hore usoo aragnay intaa waxaynu kaga soo gudbaynaa waxaa loo yaqaanaa faraawilka oo aynu kusoo sheegnay inuu yahay qaybta taranka ee dhirta kaasoo ka kooban male and female sagasalis ama gamatis bowlan green waxaynu idhi male gamatisku waxay sidaan bowlan green female gamatiskuna waxay sidaan ovulis waayahay waxaynu eegaynaa waxa loo yaqaano pollinationka waa maxay pollination isfaxlid baa loo yaqaanaa pollinationku waa transferring pollen grains from antar to the stigma of the faraawil waxaa loo yaqaano pollinationku waa habka ay isku faxlayaan labadan qaybood aynu hore usoo aragnay waxa weeyaan bowlan grainiskii halkan waxay noo yaalaa qaybtii aynu soo sheegnay inuu yahay kaarbalkii ama female faraawilkii oo ah qaybtii dhadig halkana waxay noo yaalaa qaybtii labadana waxaa la rabaa inay sameeyaan waxaa loo yaqaano
pollinationku waa isfaxlidda ay isfaxlayaan labadan qaybood ee female-ka ah ama carbalka iyo antarku deetana halkan waxaa kusoo dhacaya waxaa loo yaqaano pollen grainska pollen grainsku markay tuumbadaa dheer ee faraawilka ku dhacaan waxaa inoo soo baxaya halkaa waxaa kusoo dhacaya pollen grainskii halkan waxaa ku jira waxaa loo yaqaano ovulkii isku tagga ay isku tagaan ovariga halkan ku jira iyo pollen grainska ka yimid qaybtan ayaa waxaa loo yaqaanaa pollination waana habka isku faxasho dhirtu pollinationku wuxuu dhici karaa laba qaybood inuu yahay one faraawil oo uu yahay self pollination geed isagu ka kooban lab iyo dhidig deetana la odhanayo kaasi waa self pollination antarka ee pollen grainski ayaa waxay ku dhacayaan waxaa loo yaqaano ovulska deetana halkaa waxaa la odhanayaa pollinationka ka dhacay waa self pollination mar labaadka waxaa laga yaabaa laba faraawil inay kala jiraan mid lab iyo mid dhidig deetana pollen grainsku ay ka tagaan halkan iyagoo ku tegaya processi ama ha qaadan insects ama dabayl ha qaado ama dad ha qaado oo tegaya meel kale noocaana waxaa loo yaqaanaa cross pollination ayaa loo yaqaanaa waayahay waxaynu nidhi waxaa loo yaqaana pollinationku waa processka ama waa transferring the pollen grain from anther to the stigma of the faraawil waa habka ay uga tagaan pollen grainsku ama ugxanta lab ay uga tagaan antarka oo ah halkay ku jireen aanay tagaan stigma of the faraawil stigmaha faraawilka oo ku jira waxa loo yaqaano ovulku some faraawils are carried not by insects faraawilada badankooda ama waxaynu odhanaynaa faraawilada badankooda ma qaado waxa loo yaqaano insectsku marka uu ku yaalo geed kaliya but laakiin waxa loo isticmaalaa baydaweyn oo dabaysha ah waxaynu waxa loo yaqaano faraawiliska had iyo jeer ma qaadaan ama insectsku markuu faraawilku yahay mid ka kooban lab iyo dhidig had iyo jeer dabaysha ayaa isku faxlisa oo halkaas ayuu ka yimaadaa faxalku had iyo jeer meelaha isfaxalku ka yimaado ama pollinationku uu ka dhacawan positionka waxaa ka mid ah garaaska waayahay waxaynu eegaynaa waxa loo yaqaano types of pollination there are two types of pollination waxaa jira laba nooc oo loo qaybiyo waxa loo yaqaano pollinationka waa cross pollination iyo self pollination aynu ka horeyna waxa loo yaqaano cross pollinationka cross pollinationku the pollen in the transformed from the anther of one faraawil to the stigma of another waxaa la yidhi waxa loo yaqaano cross pollinationku waa pollen grainskiiba waxay ka tegayaan antarka hal faraawil iyagoo tegaya stigma another faraawil waa laba geed oo laga qaadayo mid lab muxuu ahaa pollen grainskii lana geynayo mid female ah stigmihiisii processka haddaba pollen grainska ama pollen grainska ay uga tagaan hal geed iyagoo tegaya geed kale ayaa waxaa la odhanaya waa cross pollination halkaa waxaa isku weydaartay pollinationka ama pollen grainska waxay ka tegeen geed waxaanay tegeen geed kale waxaa la odhanaya waa cross pollination self pollinationkuna sometimes pollen grains of a faraawil deposit on its own stigma pollen grainskiiba waxay ku dhacayaan stigmaha isla faraawilka laftigiisa kaana waxaa la odhanayaa waa self pollination haddaba waxaynu nidhi waxa loo yaqaano pollenka ama muxuu ahaa pollen grainska waxa qaada oo had iyo jeer waxyaabaha wax faxliya waxaa ka mid a shinnidu waxay soo booqataa faraawilka deetana waxay u timaadaa faraawil kale markay faraawilkaa soo booqato ama ubaxaa soo booqato waxay cagaha kaga sii qaadaa ama lugaha kusii qaadaa waxaa loo yaqaano pollen grainski oo ah ugxantii lab ee faraawilka bee travels another plant shinnidaas waxay tagtaa geed kale of the same type oo isaga la mid ah deetana waxay ku samaysaa waxay ku gudbisaa wixii ay siday oo ahaa waxaa loo yaqaano pollenski ama pollen grainski on the pollen bee pistil of the faraawil on the another plant halkaa waxay nooga cad waxaa loo yaqaano shinnidu waxay tagtaa geed deetana waxay ka soo qaadataa waxaa loo yaqaano pollen grainska iyadoo ku soo qaadaysa cagaheeda waxaanay tagtaa another faraawil ama faraawil kale tagtaa iyadoo ku samaynaysa faraawilkaasi ku gudbinaysa wixii ay siday oo ahaa pollen grainski imageka inoo muuqdaa wuxuuna tusaya waxa loo yaqaano cross pollination iyo self pollination ka dhinaca midig xiga waa cross pollination shinnidii waxay ka tagtay pollen grainski traveling another plant of the same type waxay tagtay ama waxay shinnidii qaaday pollen grainskii bay kusii qaaday lugaheeda deetana waxay tagtay other plant geed kaley tagtay
on the same tape oo isaga la mid ah deetana shinnidaasi halka waxay ka qaaday pollen grains waxaana geysay ovary geed kale ka noocaas waxa la oranayaa waa cross pollination pollen grainska kale ama sawirka kale inoo muuqda waa isla geedkii uun shinnidii waxay cagaha ku qaaday waxa loo yaqaano antarkii ama muxuu antarkii oo ay ku jiraan pollen grainskii deetana isla geedkii bay ku degtay meel kale oo kamid ah halkaana waxa ka dhacay waxa loo yaqaano pollination ama faxlidda waayahay waxa inoogu xiga waxa loo yaqaano fertilizationku involves jointing of nuclear of the male and female gametes waxa loo yaqaano fertilizationku waa isku xidhka ay isku xidhmayaan nucleasta male-ka iyo female gametesku isku xidhkaasi marka uu dhaco ayaa waxa la odhanayaa waxa meesha ka dhacay waa waxa loo yaqaano fertilization development into the seed waa seedka horumarkiisa ama koritaanka seedka after fertilization marka uu dhaco fertilizationku most flowers die flowers-ka badankoodu way dhintaan waxa la marka uu dhaco waxa loo yaqaano fertilizationku flowers-ka badankoodu way dhintaan laakiin waxa soo hadha only ovary survive ovary-ga oo kaliya ayaa soo hadha inside the ovary hadaba ovary-ga gudihiisa fertilizer ovary grow into and development into seeds waxa ku dhex jiray waxa loo yaqaano halkii uu ka dhacay waxa loo yaqaano fertilizationku oo ay ku soo kulmeen male gameteska iyo female gameteska oo ku dhex jira ovuleska deeta faraawilkii wuu dhintay halkaa waxa ka dhacay waxa loo yaqaano koritaan grows and development into seed seedku wuxuu sameynayaa koritaan iyo horumar a seed consists of seedku wuxuu ka kooban yahay tin embryo qaradiisu ay yar tahay plant enclosed aynu aragno horta waxa loo yaqaano embryoda waa shayga ay ka korto ama waa seedka yar ay ku dhex jirto waxa loo yaqaano wuxuu ka kooban yahay embryodu laba qaybood guud ahaan qaybta koowaad waxaynu odhanaynaa halkan waa embryo waa shoot embryo waxaynu odhanaynaa waa shoot embryo halkan kalena waxaa la odhanayaa waa root embryo iyo shoot embryo halkan waxaa ku dhex jirta foodkii ama waxaa ku dhex istorgaraysan cuntadii kan sare waa cowd sare oo daboolan ama waxaynu odhanaynaa waa mid sare waa layer adag oo qaradiisu adag tahay oo ay ku dhex seefgaraysan tahay waxaa loo yaqaano gameteski waayahay waxaan raacinaa waxa loo yaqaano germinationka seeds need water germinationku waa biqlida ay soo biqlayaan midhuhu seeds need water seedsku markay sameynayaan germinationka ama biqilka waxay u baahan yihiin biyo sidoo kale waxay u baahan yihiin oxygen waxay u baahan yihiin suitable temperature waxaanu seedka markuu sameynayo germinationka ama koritaanka ee uu sameynayo biqilka yar ee hoose wuxuu u baahan yahay water sidoo kale wuxuu u baahan yahay oxygen wuxuu u baahan yahay suitable temperature ku haboon before they began to germinate ka hor intaanay bilaabin inay sameeyaan biqilka waxaynu soo sheegnay halkaas seedku inuu u baahan yahay biyo iyo oxygen sidoo kale inuu u baahan yahay temperature ka hor intaanu sameynin koritaanka ama germination oo ah biqilka this is why many plants don't begin to grow taasina waa sababta dhir fara badan aanay u sameynin koritaanka until they bring one it get a warmer ilaa ay ka helayaan temperature ama diirimaad ay ka helayaan sidoo kale ay helayaan caradii oo ay ka dhex helayaan oxygentii iyo waterkii waayo intaa waxay nooga xiisadeeni maanta intaynu xiisad lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta
oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno